waxaa faahfaahin kala duwan ay ka soo baxaysa qarax ismidaamin ah oo gabadhay caawa lagu weeraray hotelka Afri ee magaalada Muqdisho. Wararka aan ka helin hotelka Afri ayaa sheegaya in qaraxaas uu dhacay 5:00 galabnimo. Qarax kadibna kooxo hubeysan ay gudaha u galeen dhismaha hotelkaasi. Ilaa iyo iminka waxaa la maqlay rasaas waaweyn oo isu adeegsanayaan ciidamada ammaanka Soomaaliya iyo kooxihii weerarka ku qaaday hotelkaasi iyo sidoo kale in qaraxyo waaweyn laga maqlayo bartamaha hotelka. qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa la xaqiijiyay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa haddana waxaa si dhab ah loo xaqiijin karin khasaaraha dhabta maadaama qaraxa uu ku soo aaday xilli habeen ah lana maqlayo rasaas waaweyn oo isweydaarsanayaan ciidamada ammaanka iyo kooxihii weerarka soo qaaday. booliiska Soomaaliya ayaa si kooban uga hadlay falkaasi waxaana ay sheegeen in weli howlgalka uu socdo isla markaana ay soo gudbin doonaan macluumaadkii ugu dambeeyay marka la soo afjaro. dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen isla markaana ay soo gudbin doonaan macluumaadkii ugu dambeeyay. xilliga hotelka la weerarayay ayaa sidoo kale waxaa ku sugnaa saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Soomaaliya kaas oo ugu horeeyo ama laga carbaabi karo Yuusuf Maxamed Siyaad Hindhacde oo ah sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka midnimada Balaawiye oo xilligaasi kulan ugu soconaya hotelka Afri ee magaalada Muqdisho. wararka qaar aan helnay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in Yuusuf Maxamed Siyaad Hindhacde ay soo badbaadiyeen ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya iyo milkiilaha hotelkaasi oo la sheegay laftiisu in ciidamadu ay soo badbaadiyeen. weli waxaa la maqlaya qaraxyo waaweyn oo ay tuurayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gudaha u galay hotelka Afri ee magaalada Muqdisho. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa yaraa dhismooyinka Al-Shabaab ay fuulaan ama hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho balse kan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dalka oo ku jiro kala gool isla markaana uu diyaar garoobaya inay ka dhacdo doorashada Soomaaliya. haddaba saamilada siyaasadeed dalka qaarkood ayaa ku micnayay in weerarkan uu yahay habacsanaan dhanka amniga ah oo ay ku tilaabsatay xukuumadda madaxweyne Farmaajo balse Al-Shabaab ayaa wadar jaro hore weerar cinkan waxa ay ka geysteen magaalada Muqdisho. sidoo kale Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay beddelitaanka dagaalka kuwaas oo isticmaalaya gawaarida lagu soo dhajiyo walxaha qarxa iyo dililka qorshaysan inta badan ay ka geystaan magaalada Muqdisho.